bishii toddobaad ay laba tahay waxaa noo imaaday wafdi ka socdo UNHCR oo uu hogaaminayo ambassador Maxamed Cabdi Afey oo ah madaxa UNHCR ee Afrika iyo delegation kale la socdo Geneva ka timid iyo wakiilkii Soomaaliya ee UNHCR runtii farxaday noo tahay inay maanta wafdigaasna soo gaaraan waxaan ka wada hadalnay sidii dadka qaxootiga ah ee reer Koonfur Galbeed dib u dejin loogu suubin lahaa kuwa ka imaanayo meelaha ay jiraan sida Yemen iyo Ethiopia iyo Kenya deegaanadooda loogu celin lahaa ee dib loo soo dejin lahaa kuwa IDPs-ka ah ee baydhabo joogo iyo magaalooyinka kalena loogu suubin lahaa xal waaro iyo sidii ay u heli lahaayeen mustaqbal oo loo dejin lahaa guryana loogu dhisi lahaa adeegyada bulshada oo dhan loogu dhameystiri lahaa loo heli lahaa waxbarasho iyo caafimaad iyo deegaan rasmi ah oo helaan oo dib u dejin loo suubin lahaa baan ka wada hadalnay runtii waxay ahayd shaqo fiican aad baana isula fahanay waana loo ballan qaaday dib bayna u noqon doonaan annagana sharaf ay noo tahay dadka baydhabo waxay noqotay magaalada ugu tirada badan dadka IDPs-ka degan ilaa iyo waxaa lagu qiyaasayaa inuu gaarayo 400 oo kun oo qof ku dhawaad 300 iyo wax la jiro sidaas darteed ay ahayd socodka wafdiga uu yimid inay dadkaas ayaga ay meel ku ogaadaan oo u helaan sidii loogu suubin lahaa dib u dejin iyo meel ay saldhig fiican loogu sameyn lahaa annaga dawlad ahaan waxaan kala shaqaynaynaa UNHCR-ta iyo cid kasta oo gacan siinayso qaxootigaas inaan wax allaale wixii facility oo dawlad ahaan aan u baahano aan gacan ku siino dhulkii aan bixino ay degi lahaayeen oo dib loo dejin lahaa aan kala shaqaynaa sidii tuulooyinka loo celin lahaa aan ugula celin lahayn nabadgelyadooda iyo dib u dejintooda aan kala shaqayno wax allaale wixii maamul Koonfur Galbeed ahaan ahna aan kala shaqaynana aan la garab taaganahay aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada waana ku mahadsantihiin shaqadan fiican oo aad noo keenteen wabillahi tawfiiq